kulankaasi ballaaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanya kula yeeshay xarunta qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland wafdigii uu hogaaminayay wakiilka hay'adda cuntada adduunka u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya kulankaasi oo mid saacada qaatay ayaa muddadii uu socday lagu lafaguray si xoojinta iyo waliba wada shaqaynta u dhaxaysa hay'adda cuntada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP iyo waliba jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliland Mudane Farax Cilmi Geedoole oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay qodobadii lagaga hadlay waxyaabihii ay daaranaayeen waftigaas oo nagala soo qayb galay dhowr arrimood oo ah wiigii ama asbuucii cuntada iyo biyaha ee Soomaaliland sugnaanta cuntada iyo biyaha isla markaana uu yimid inuu furo mashaariic ay ka sameeyeen laga sameeyay wadanka isla markaana waliba u yimid si aan uga wada hadalno wax ka qabadka arinta ayaxa wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa isaguna ka hadlay shirkaasi waxaan rajaynaynaa wada shaqayntaas inay noqoto mid inta ka sii fido ka sii balaarto waxtar leh wax soo saarkeedana la arko tayaar insha Allah binilaahi kariim Master Luca Alinofi oo hogaaminayay waftigaasi ayaa isaguna tilmaamay muhiimadda uu lahaa kulankaasi waxaana uu halkaasi uga mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka iyo waliba madaxda kale ee dawladda ka tirsan kulankaasi ballaaran ee ay u sameeyeen. Good morning, I'm Luca Alinofi. I'm the country representative for Somaliland and Somalia, and I've been here to pay a courtesy visit to the President of Somaliland in view of the event, the most important event of tomorrow and after tomorrow, which is the food security and water, the food and water security conference that is going to be held there and where we will participate. I had the occasion today, thanks to the presence of the Minister of Planning, the Minister of Agriculture and the Vice President, also to present the result of the program up to now, which has been enlarging on a number of domains. kulankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la qaatay madaxda ka socotay hay'adda WFP ayaa waxa ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici wasiirada wasaaradaha madaxtooyada beeraha iyo qorsheynta qaranka